markaan waxaan leeyahay qolada xamar joogtaa war waxa isku khaldineen oo dadka madaxa waxa isu dhexgelineen waa la ii jeeda dadkuna waxa waa fahansan yahay ciyaarta ka daaya baash war adiga xagga noo hormarsan kaamera ma nagu socotay adiga naga wareejinay maayo kale dad Soomaaliga inay dhacdo Ethiopia safiirka Muqdisho ka ciirnaya taas waa aad baa uga xumaanayna dawladda Garowe waa dawlad weyn ayadaas maamusha waxa way waxay maamulata marka taas awood ma laha Hargeysa awood ma leh may waxa joog meesha joog wax ay ka qaban kadho oo yaratay ma jiraan afku ba ka tiri xaba ma soo korin wallahi horta waa arrin kaafi kala dheeri ah ayadoo la leeyahay Ethiopia Amisom bay kamid tahay oo dalkay joogtaa haddana safiiradeeda la ceyrsado oo mataqaanaa waxa way lala dagaalamayo kolleyda dalka Soomaaliya hadda waxa ka jira xaalado karikation oo badii Soomaaliya la isku haya oo Soomaaliya hadda Ethiopia iyaga xurguf baa ka dhaxaysa siyaasadeed oo badal la xiriidha haddana waxa moodaa arrimo kale oo mataqaanaa isqabashada Puntland iyo Ethiopia haddana in la isku dhex kariyay waxa marka Puntland ka dhaxeeya iyo federaalka waxa ka dhaxeeya oo ay isku hayaan dastuurkii arrimahaas waa arrimo gooni ah waxa Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhaxeeyo arrimaha badda iyo waxyaalaha la xiriirana waa wax yeelo gooni ah markaan waxaan leeyahay qolada xamar joogtaa war waxa isku khaldineen oo dadka madaxa waxa isu dhexgelineen waa la ii jeeda dadkuna waxa waa fahansan yahay ciyaarta ka daaya baash sidoo aragtaa golaha wasiirada Soomaaliya maanta hadaladii qaraaraya ka soo baxay ee faragelinta dawladda Ethiopia hadalladaas dawladdu iyada xor ah oo mataqaanaa cid dalkeeda ay ka ceyrinayso cidiisa ka ceyrin iyada xor ah wayna oran ka dhaa laakiin mataqaanaa khilaafka siyaasadeed oo iyada iyo maamul goboleedka Puntland soo kala dhaxgalay dawlad goboleedka Puntland soo kala dhaxgalay inay uga faa'iideysato waa arrin aan sax ahayn oo mataqaanaa waaga hore mataqaanaa reer Puntland waxay ka dagaalameen la dagaalamay oo arrimo mataqaanaa khuseeyo lagu dagaalamayay haddana waxa moodaa dawladda federaalku inay waxyaalo kale u sii socoto aysan maqsuudkeedu ahayn Ethiopia la dagaalan macnaha waxa la yiri priority orgiga ka weyn arrintu mataqaanaa waxa loo socday iyo waxa laga hadlayo Ethiopia ma aha ay wax ka sii shisheeyo oo ka sii fog baa laga hadlayaa awood ma u leedahay dawladda Soomaaliya xiritaanka qunsulka ka furan Hargeysa iyo Garowe dawladda Soomaaliya ayada arrimaha dibadda mas'uulka ah awoodna way u leedahay way oran ka dhawaa xiri ka dha laakiin cidii ka yeeri lahayd oo mataqaanaa ka qaadan lahayd bal dawladda Soomaaliya Puntland waxay tiraa awal bay hore waxay sheegtay anagu ma aqoonsanin Soomaaliya Hargeysana awal bay hore waxay tiraa anagu ma aqoonsanin Soomaaliya marka ciiday xukumaan un bay wax oran karaan baan u maleynaya ciidaysa xukumin waxba ma oran karaan baan u maleynaya Ethiopia walaalahan weeye marun bal raab sabeen Ethiopia Soomaaliya wixii qaldan waa la qabanaya waana aragnaa anagu shacab baan nahay Ethiopia Soomaaliya Ethiopia waxay tiri badda Soomaaliya qaadanaya taasi waa laga diiday laakiin safiirka Ethiopia in la ceyriyo ma fiicna Ethiopia Soomaaliya waa walaalo weeye Ethiopia xaq bay ugu leedahay oo wadanka Soomaaliya aad bay u difaacday dawladda Soomaaliya awood ma u leedahay inay xirto qunsulka ka furan magaalada Hargeysa iyo magaalada Garowe qunsulka ka soo Hargeysa iyo Ethiopia taasi waa taa maamulo weeye waa ceyrin kartaa laakiin dawladda Soomaaliya inay dhacdo Ethiopia safiirka Muqdisho ka ciirnaya taas waa aad baa uga xumaanayna aan soo dhaweynaa dawladda Soomaaliya wadankeeda dawladka ah waa inay wax fiirisaa waxana ay wixii dalka wadanka waxa wadda Soomaaliya wixii lugoynaya oo dibahana lugooyo ku wada waa inay ka ciirisaa laakiin wixii soo dhaweynaa dawladda Soomaaliya waa ku soo dhaweynaa Ethiopia waa walaan daris baan nahay Soomaaliya way difaacday intaas sana ku dhimatay kalqacyo oo 9 kiiloomitir loo soo fariistay bay ka difaacday waa mahadsantahay bal sidaad u aragtaa in safiirka u fadhiya laga eeriyo dalka Ethiopia Soomaaliya ayadoo wali gudaha dalka ay joogaan ciidamada Ethiopian waxaan isnaaga jira barnaamijka aan reer Puntland baan nahay waan gartay Puntland Soomaaliya maxay Puntland Soomaaliya waxay kala yihiin reer Puntland baan maxaa ay galay Soomaaliya dawladda Soomaaliya awood ma u leedahay xiritaanka qunsulka ka furan magaalada Hargeysa iyo magaalada Garowe may mas'uulka ma aha ana daniya mas'uul laga mahadsantahay de kale horta wallahi dadku inta badan dhar ciideed bay gataan laakiin haddii aanu nahay ciidan anoo dhar ciideed ma gadano ama shacabku ha ciidaan de kale shacabku in badan bay wada ciidayaan inaan amnigooda sugno oo aanu ilaalino waxyaabaha dalka ka jira iyo dhibaato war adiga xagga noo hormarsan kaamera ma nagu socotay adiga naga wareejinay maayo waa maalmo aad u qurux badan oo dadku wada afran yihiin laakiin bisha barakaysan oo dhamaatay oo Ramadaan lagu soo jiray maalinkii ciida shacabkii oo si wanaagsan u ciidaya oo si qurux badan u ciidaya farxad iyo amni iyo ku ciidayo nabadgelyo annaga wax noo muhiimsan in shacabkii ku ciidaan nabadgelyo iyo amni daanu nahay reer Puntland si barreegal qacay wareed Aaron iyo Xasan Sheekh waxa la adeer macaan shaqaladina ka fogaan xalad baadiyada oo dhashay meesha iyo kuma shiriyaan meesha daaro damarya Xasan Sheekh kuma weydiin faragelinta dawladda Ethiopia golaha wasiirada ka hadlay dawladda waxaas dawladii waxa maana anu Puntlander baahay ay Puntlander ma garatay anu Puntland cid soo faragelisay anay farageliyo Soomaalida garan marka niyo waxa leeyahay Sheekh Ethiopia waxa naga dhacaan
waa isku filannahay 28 magaalo leenahay intanaasaa naga badan والله horta boqolkiiba boqol aad baa u soo dhawaanaya Ethiopia waxay duulaan ku soo tahay dalka mataqaana Soomaaliya runtii waxay sameeyeen mataqaana wasiirada Soomaaliya oo wax aad iyo aad loogu bogaadinayo dalkan waxa loo baahan yahay midnimo Soomaaliyeed jiritaanka ummadda Soomaaliyeed la ilaaliyo koox mataqaana qowleysata ah oo ka soo horjeeda mataqaana midnimada ummadda Soomaaliyeed runtii waa in dalka Soomaaliyeed laga badbaadiyaa Ethiopia waxay mar walba duulaan ku tahay waxa weeye badeena dhulkeena iyo jiritaankeena marka anigu aad iyo aad baa u taageersanahay dawladda Soomaaliya awood ma u leedahay inay xirto qunsulka ka furan Hargeysa iyo sidoo kale Garowe awood fiican bay u leedahay ha awood u leedahay sababtoo ah dalka Soomaaliya dawlad kaliya ka talisa waxaan maamul goboleeda lagu sheegayo wax uu mataqaan awood leh ma Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baa madaxweyne ka ra'iisul wasaarana waxa ka ra'iisul wasaare Xamse iyaga dalka mataqaan loo dhaashay iyaga ummadda Soomaaliyeed mataqaan madaxweyne ra'iisul wasaare u ah marka mar walba Soomaaliya wixii ka khadamay wixii ka saxaa waxa la weydiinayaa waxa weeye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse golaha wasiirada Soomaaliya maanta qodobo qaraar ayay ka soo saareen faragelinta dawladda Ethiopia bal sidaad u aragtaa adiga anigu de mar walba waxaan u taageersanahay waxa weeye jiritaanka mataqaana Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse waxay ka shaqeynayaan waxa weeye waa sidii dalka loo horumarin lahaa cadawga shisheeye looga celin lahaa waa ogtahay dalkan waa lagu soo duulay marar badan baa lagu soo duulay jiritaankiisa lagu soo duulay hidihiisa iyo dhaqankiisa lagu soo duulay mar walba de waxaa la rabaa waxa weeye in dalkan la badbaadiyo marka anigu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud birmada Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse waa taageersanahay horta wallaahi waa soo dhaweynaya dowladda federaalka boqolkiiba boqol arrinkaas waxa la yiri talabadaas mar hore inay qaado maalinta hore masuul bixbada geeniyay in qaadaal rabay waa soo dhaweynaya boqolkiiba boqol inkastoo nin ahay Puntlander haddana dee Soomaaliya baa laga maarmo Soomaaliya wax ku nahay calanka buluuga wax ku nahay markii la eego Xasan Sheekh iyo Abi Axmedna dee labada Xasan Sheekh waa qaadan lahaa nin xiga isku dhaqay isu diinahay way ma garatay marka talabadan waa soo dhaweynaya aniga la ceeriyay safirkaas wali waxaan ka sii jeclaan lahaa in waxa weeye ciidamadan laga saaro ii sheeg Soomaaliya Etoobiyaanka ah oo waddanka dhan Soomaali noqoto in dawladda Soomaaliya awood ma u leedahay xiritaanka qunsulka ka furan magaalada Hargeysa iyo magaalada Garowe ma awood ma laha dawladda Garowe waa dawlad weyn ayada ismaamusha waxa weeye waxay adaa maamulata marka taas awood ma laha Hargeysana awood ma leh laakiin aniga maadaama aan Puntlander ah oo calankii Puntland jecel laakiin markii la eego Ethiopia in Soomaaliya noqonaya aniga marka laakiin hadda inay ceeriso qusulka u fadhiya Garowe kaas awood ma leh dawladda Soomaaliya waayo because Puntland ciidan bay leedahay awood madaxweyne gaari leedahay taas awood ma leh marka taas anigu ma taageersan laakiin midda kale oo in la ceeriyo Ethiopia taas waa taageersanaanay golaha wasiirada Soomaaliya hadalladii qaraaraya ka soo baxay sidaad u aragtaa faragelinta dawladda Ethiopia waa soo dhaweynaya golaha wasiirada maadaama ay shaqo fiican maanta qabteen dawladda Xasan Sheekh waliba maanta kaliya taageerayba maadaama Ethiopia ka ceerisay waddanka oo tiri waxa weeye Ethiopia safiirka waa ceerinay marka waa soo dhaweynaya boqolkiiba boqol golaha wasiirada waa mahadsan yihiin laakiin mar walba waxa Puntlander ahay Puntland waa jeclahay waddankayga waa jeclahay laakiin haddii mar Soomaaliya timaado doo Soomaali waana calanka buluuga waa hoos fadhinaa dawladda Soomaaliya awood way u leedahay laakiin macnaha muhiimadda waxa weeye mataqaanaa sharcigu inuu shaqeeyo waa la eryi karaa iyaga ciidamadooda iyo waxooda waa la cayni karaa ma garatay mid kale Ethiopia iyo Kenya wadamo aan nahay boosnahay waa deris aan nahay wadamada deriska waxaaba khalad inay ciidamada gudaha joogaan Soomaaliya gudaha inay joogaan baa khalad markaan waxaan qabaa maca ciidamadooda maca safiiradooda in la saaraba sidaad u aragtaa hadalladii ka soo baxay qaraare golaha wasiirada Soomaaliya Soomaaliya haddii muwaadiniin jirto oo sida saxda ay u shaqeynayaan oo alyoomka iska daayaan damanooli haddii iska daayaan oo sida saxda u shaqeeyaan waa la taageerayaa dee laakiin inta shilin qaadanayaan dee waddanka shilinka dadka dhaafsanaya insha Allah waa ka dhamaanaya dadka muwaadinka imaanaya oo kursiga fuulaya dawladda Soomaaliya awood ma u leedahay xiritaanka qunsulka ka furan magaalada Hargeysa iyo magaalada Garowe ha awood u leedahay waayo dee waa federal system way waddanku still federal system ka shaqeynaya awoodana ayada iska leh dawladda awoodana xidho horta waa tallaabo fiican laakiin waxa ma soo kordhinayso haddaba ciidankooda wali ay joogaan waxa la Ethiopia ayada qayb ka mid ah Soomaaliya maamulsa saa ogeed waxa ma soo kordhinayo safiirka la ceershay waxa ma soo kordhinayo waayo Soomaaliland baa la shaqeynaysa Puntland baa la shaqeynaysa Ethiopia safiirku waxa ma soo kordhinayo
dowladda Soomaaliya awood ma u leedahay xiritaanka qunsulka ka furan magaalada Hargeysa iyo magaalada Garowe may waxaas jugjug meesha joog wax ay ka qaban kadho haba yaraatee ma jiraan afku ba ka tiri waxba ma soo kordhinayso sababtoo ah Hargeysana awal bay ka madax banaanayd Garowena hadda ku darmata marka labadaba midna ma maasho waxana ka sameyn kadho wallahi arrintaasna arrin kale weeye Puntland waxay ku dhawaaqday inay dawlad madax bannaan tahay taasna wallahi aad iyo aad bay u foolxun tahay oo marka de siyaasad lanooga adkaado inaan nidhaahno marka siyaasadna looga adkaado waa baxaynaa waa arrin lagu yaqaanay laakiin waxaan leenahay nimankeena reer Puntland iyo reer Somaliland haddaan nahay iyana isdhiibin sababtoo ah siyaasadda markeenaan qaadanana markeenaan madaxa isku taagana ayaga Soomaaliyana waxaa leeyahay madaxweynaha kalena waxaa leeyahay mar haddii aad aragteen inaad shacabka ka soo horjeedaan iyo dadkaagiba وني واحد dadkaagu garanaya ku soo aqligana ka shaqeysay madaxweynaha waxa lagu doortay dalka lagu doortay mar labaad lagu soo celiyay waxa weey inaad dadka isku wada leenahay